السلام عليكم أخواتي ميل walba joogtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doono kulamadii caawa laga ciyaaray qaaradda Yurub tartanka xiisaha badan UEFA Champions League kulamo shubax ayaa la ciyaaray Paris Saint-Germain iyo Newcastle United ayaa barbaro gool ku kala baxay ciyaar ka dhacday garoonka Parc des Princes groupkan waa groupka dhimashada ilaa haatan koox dhacday waan soo baxay maba jirtaba farqaha ayaa la isku haystaayo waa la isjiidaya walo Borussia Dortmund ee haatan la dhihi karaba waaba kooxda soo baxday marka loo eego 10 dhibcood inay leedahay Borussia Dortmund ayaa garaacday nimanka AC Milan 3 gool ku dhufatay Paris Saint-Germain iyo Newcastle United gool ay ku kala baxeen Kylian Mbappe ayaa daqiiqadii 98 rigooro loo dhigay oo VAR ay dhigtay ayay barbara ku heleen ee maahane waa la jiidi lahayo nimanku god dheer ay rajadooda ku sii dhici lahayd laakiinse ugu dambeyn barbara ayay heleen haatan iyagu waxay leeyihiin 6 dhibcood nimanka aan 7 dhibcood ay leeyihiin nimanka Paris Saint-Germain halka Newcastle iyo AC Milan 5 dhibcood ay leeyihiin marka groupka waa group khasro ee final gameka waa isdaba taagnaanaya Man City gurigooda Etihad Stadium ayaa gool 3 gool iyo 2 gool kaga gaareen RB Leipzig oo ciyaar cajiib ah kula qaateen Etihad Stadium kooxda Manchester City ayaa qaybtii horeba 2 gool lagu mariyay iyadoo la yaaban yahay ayay comeback cajiib sameeyeen Haaland ayaa noqday ciyaaryahankii ugu da'da yar ee 40 gool UEFA Champions League ka dhaliya laacibkan ayaa 35 kulan ay ku qaadatay in 40 gool oo gaaro inaba caadi maahan Master Haaland Master Goal lama jooji karin ninkayo ha ciyaaro tartan walba shabaq uu gaaraya waa Master Record aad ayuu u daayaryahay Super Haaland marka City comeback cajiib ay sameeyeen Phil Foden iyo Alvarez ayaana goolasha kala qaatay marka Barcelona iyagu ciyaar cajiib ah kurigooda ku qaateen gool ay gaareen wiilasha reer Portugal ee Joao Felix iyo Nick Lirado Joao Cancelo ayaana caawa Barcelona gool ka siiyay kooxda Portugiiska Portugiis ayaa dili kara sheekadu sida ay tahay kooxda FC Porto iyaga ayaa gool bilaabay Cancelo barbareeyay Felix ayaa saaray marka ciyaartu 2 gool ayay ku soo dhamaatay FC Porto waxa ka taqalusayba wiilashooda Joao Felix iyo Joao Cancelo oo Portugiis kooxdu waa Portugiis waxaana dilay Portugiis kale AC Milan caawa gurigooda ayaa lagu xasuuqay Paris Saint-Germain barbar ma helino oo Newcastle Parc des Princes barbar ma ku qaadatay laakiin nimanka Newcastle nimankii Dortmund ahay inta ay qabteen AC Milan San Siro ugu booqdeen xashka ka soo dhuuqeen 3 gool ay ku dhufteen 6 daqiiqo rigoor ay qasaariyeen Elva Giroud rigoor oo dhigtay laga qabtay 10 daqiiqo markii Cruz rigoor loo dhigay waa dhaliyay way barbareeyeen AC Milan Chukwueze barbareeyay mar kale waa nimankii kish kale laga dhaliyay waa loogu daray adiga 3 gool lagu dhuftay Champions League nimankii la oranayay AC Milan marka groupkan xaaladiisa way yar akrantayo hadii aan muuqaalka channel la garay kana subscribe noo soo gudbay